waraysigani wuxuu ka mid yahay waraysyadii aan dhageystay kuwii ugu qiimaha badnaa sida waraysigii Sheekh Cabdibaasid oo kale. waraysigan iyo waraysigaas Sheekh Cabdibaasid ba waxay culimada la waraystay Allah barakeey kaga hadlayaan qofku inuu barto rabbigii macrifada Ilaahay in Ilaahay la barto markasta oo Ilaahay aad baratid ama yani waraysiyo noocan oo kale aad dhageysatid waxa ku siyaadaya jacaylka aad rabbiga u qabto oo adoonku markuu rabbigiisa barto mar walba adoonku uu rabbigii barto uu sii dhawaanaya waxaana u siyaadaya jacaylka uu rabbiga u qabo inuu ka tago waxyaabaha laga xarimay inuu sameeyo waxyaabaha la faray inuu de rabbigii uu si wanaagsan u barto inuu dhawaado xiriirka isaga rabbigii u dhaxeeyana uu wanaajiyo wallahi labada podcast qofkii dhageysta noloshiisa wax weyn ayaa iska bedelaya wax weyn baa iska bedelayo qofkii intuu de hal mar dhageysto ama laba mar iyo saddex mar haduu doonaha kala dhageystay yani si isku dhow ama isdaba joog u dhageysta si tartiib u dhageysta isagoo maskaxdiisa iyo qalbigiisa iyo niyadiisa wax kale ku jirin de wali waxaan kula talin lahaa dadka hal mar ay waqti hayaan inay dhageystaan inta waqti u raadiyaan waa laba warayso aad u qiimo badan noloshaadana wax weyn ka bedelaya xaqiiqdii